الله الرحمن الرحيم ولاashan cadar oo idin ku soo dhawaada kanaalkayga cadar cooking meel kasta adduunka ka joogtaan walaal haddaad nagu cusub tahay subscribe kana sar haddaad hore noola joogtaan like iyo share nagu dar adigoo mahadsan muufadan aan sameysanay hadda waxaan idin leeyahay sidaan u sameeyno hadda daawasho wacan bismillaah asxaabi halkan waxaan ku haystaa in laba bakeeri oo maxay soor waaye soortan waa mid budo ah waaye saa u jeedinba iyo oo labadan waa jaalle iyo iyadoo cad mid ah waaye iyo mid bakeeri oo bur ah sidoo kale halkan waxaan ku haystaa wax yar cusbe ah faniiniya hal qaado oo qamiir ah ayaan haystay hal qaado oo faniiniya waaye sidoo kale caano qandaca biyo qandaca sidoo kale aan haystaa marka iyo wax yar hal qaado oo sokor ah kan caanaha ku shubanaya carfisada iyo cusbada sidoo kale qamiirka sokorta maraan ku shubanaya oo kale soorta intaasna bakeeri burkaana waa kula daraa kula shubaya biyaha ayaga dhan ku shubaya hafa ka reeba inta u baahan tahay inaan ogaadaan rabaa qaabkii biyaha iyo hore waa aan ku darsaday marka hadda saasaan ugu qasay biyaha waxaa la rabaa qofku intay baash adayg la noqonayso inuu arko inay jileec ka noqoto ma aha sida canjeeladii waa inay xooga adkaato muufada intaas inay noqoto ayaa laga rabaa inay maaragtay bacaq ka noqoto ma hadhowday sida canjeelada iyo kale ka noqoto inay adeeg noqoto waaye hadda insha Allah ta'ala meel aan dhigaa ku daboola si oo maaragtay u markay kacdo insha Allah si u soo kacdo waa soo kacday hadda fadi ma sha Allah ka soo noqotay oo jeedin hadda inaan dubo waaye saxaab birtana aan soo saartay dabka birtana way u kululaatay marka waxaan rabaa iyadan ku shubayaa insha Allah ta'ala waa daboola si ay kor iyo hoosba u bislaato sababta hadaan la daboolinin hadhowd waxay noqonaysaa korka ceerin ka noqonay hoosna waa ay ka bislaanay korna waa ka ceerin marka hada daboosho wax u mataatigeeda isku taga wuxuu waa bislaanayaan hadiiba suubinaya wax yar oo ololifaan korka marinaya si oo maarta ayadana ay jiljileec ugu soo noqoto ayadana isku dhigdhigin sababta hadaan muufada kor iyo hoosba aan laga dubin oo la gidinin badana way isku dhigdhigtaa oo aysan oo kale ay tahay isku dhigaysaa marka saasan saliid u marina inay iskaga dhiginin ayada sin mayso uma baahan in aad sintid ama jiljileecsid sidoo kalena dabkana in la yareeyo waa si fiican ugu bislaato dabka kuleyl ka noqdo hadhowdii hoos ay ka gubanaysaa korna ceelina ka noqonay marka dabka in la yareeyo waay marka saan loo dubeen dabka ka yareey sida fiican markasto muufo dhanba wax birta in loo yareeyo dabka waa dabka du saaid yahay way gubanay ma sha Allah saasi jileecas ay u tahay iyada dhan kori hoosan saasi ka noqonaysa quruxdaas oo egtahay jileecna waxa waa laga dhargaa ma sha Allah aad saan u jilicsan tahay muufada muufa adag markastaba macnaha ma
macaan ma noqonayso laakiin marka jilicsanta ilmaha iyo waxa dhan way u fiican tahay asxaabi saasa ku soo dhameynaya iyada dhan abi waatana sidaan ay soo noqotay ma sha Allah sidaas ku soo baxday hadda waxaan rabaa inaan u isticmaalo waxaan soo waxay ahayd qudaartan maraqan ayaan rabaa inaan ku cuno magacaana waa maraq oo qudaar ka sameeyay waaye marka qofki sidii loo sameeyay marka hadda lama wadaagin laakiin insha Allah taala marka aan la wadaagi doona sidaan rabaa insha Allah taala in qudaartan lagu cuno maraqeedu waa qudaar lagama sheekeyn karo qudaartan hadda dhadhamisid wax hilib iyo waxaas kuma saqajaamaysid maraq oo hilib leh aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalahayga qiimaha iyo qadarinta mudan oo sida sharafta ku jirtay aad u fiirsateen fiidiyogan fadlan haddii aad ka hesheen ha ka iloobinina inaad subscribe garaysaan like garaysaan share garaysaan wixii comment aad ii dhaaftaan waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu